ومدل كلو قار واسعيار كلو قروح بدن daawadayaal meel kasta ay joogtaan waxaad ku soo dhawaataan tabinta kulanka weyn ee xiisaa leh kaasoo u dhaxeeya maamul goboleedka galmudug iyo sidoo kale ciyaartooyda hirshabeelle garsoore maxamed soomaali seeriga ayuu ka dhawaajiyey ciyaartooyda hirshabeelle ayaana sameeyeen baaska 45 daqiiqo ciyaarta ugu horeysa waa goobta ugu badan ee labada dhinac ay ku xifaaltamayaan ciyaartooyda hirshabeelle xasan kaafi oo yaa salaam kubad madbaa ayaa loo diray shabaqa xulku kubadda cagta galmudug wax kasta ay xawaareyso si kastaba kubaddana waxaa u taagan yuusuf xuseen maxamed yuusuf waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu aqliga badan ee ciyaartan ciyaaraysa oo waa u soo karasay qatar si kastaba ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdinaasir balwaan weeryahanada galmudug iyo in ay iska ilaalinayaan in shabaqooda la gaaro maadaama ciyaartan ay u tahay ciyaar miisaaniyadeeda ay sareyso maxamed abuukar mursal banaanka ayuu keenay maxamed oo yaa salaam mid kasta oo ka mid ah ciyaartooydan waxa uu haystaa ballanqaad badan oo uu ka haysto maamulkiisa waxaana taasi ay keenaysaa in wax badan ay kasii sameeyaan ciyaarto madax ayuu ku soo baasay mustafa fuad dhammaan ciyaartooyda labada dhinac u ciyaaraysa kulankan cabdinaasir balwaan baas qurux badan ayuu soo ciyaaray cajiib si kastaba kubaddaasi waxaa taabsada golaahay zakariya laaley ka hor intuusan u soo laaban oo ugu dambeyn kubaddaasi gacmihiisa uusan ku koolkoolin ciyaar laba gool ku soo dhammaatay ciyaartii xigtay gobolka banaadir waxay gooli eber ciyaar gool kulaad hali eber ay kaga adkaadeen oo baas fiican ee la soo dhigay xasan kaafi si kastaba inkastoo uu dhaliya xasan kaafi inkastoo shabaqa uu gaaro xasan kaafi inkastoo hirshabeelle shabaqa ay gaareen haddana kubaddaasi waa garab dhaaf kubadda ay dhaliyaan waa loo diiday maadaama ciyaaryahanka lagu magacaabo xasan kaafi uu ku jira garab dhaaf kubad kaloo qurux badan xasan kaafi xabadka ayuu ku xakameeyey waxaa kubaddaasi raaxaystay laacibka lagu magacaabo balwaan waa u soo dirbeeyey dhowr ciyaarana ayaa xerada ganaaxa ku jirta ciyaaryahanka lagu magacaabo koshin oo wala soo madaxeey yaa salaam gollaadso hirshabeelle ayaa dhaliyeen goolkii ugu horeeyey ciyaarta cumar bashiir cusmaan ayaa madax qurux badan ugu shubay ciyaartooyda galmudug calanka hirshabeelle ayaa qaybta sare ka babanaya calaamadda hirshabeelle ayaa qaybta sare ka babanaysa wax kasta way isbedeleen natiijadu ciyaartu way isbedeshay hirshabeelle waxay dhaliyeen gool laafay hirshabeelle waxay dhaliyeen gool laafay dabaaldeg uu sameeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo cumar bashiir cusmaan waxa uu ahaa dabaaldeg qabsaday gudaha garoonka waxa uu noqday ciyaaryahan wax badan sii nooleeya rajadii yiriday ka leeyihiin hirshabeelle waxa uu noqday ciyaaryahan ka faa'idaysta fursaddiisa wax kasta ay kubadda dhaqaaqdo waxa uu madaxeeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo cumar sida taalada oo kale ayuu shabaqu dhex taagnaa oo keliya golayaa koowaad ee galmudug laacibka lagu magacaabo zakariya lili tani waxay ahayd wax aan wax laga qaban karin calankii hirshabeelle ayaa babanaya taageerayaasha hirshabeelle way jabhadaysan yihiin waasey jalbaysan yihiin maadaama ay jalaabteen labada maamul goboleed kii soo gudbi doona galabta hirshabeelle waxay u baahan yihiin guul xilli sidoo kale galmudug keliya u baahan yihiin barbaro ama guul ciyaartan si ay u soo baxaan si qurux badan ayaa kubaddaasi loo soo karooso inkastoo si cajiibaa loo soo dhisay difaaca bidix ee hirshabeelle ayaa kubaddani soo agaasimi doona laacibka lagu magacaabo cumar bashiir cusmaan dhaliyaha goolku qureeya galabta iyo shumaca ciyaartooda hirshabeelle bannaanka la keena kubaddaasi mar kale kubaddaasi waa u qabsada gol ayaa lagu magacaabo zakariya leele kubaddaasi ayaan ahayd kubaddii ugu dambaysay qaybta koowaad ee ciyaarta wax kasta oo labada ciyaaro qaybta koowaad wax kasta oo bandhig sare ay sameeyaan ciyaartooydu ugu dambeyn qaybta koowaad ee kulanka waxaa lagu kala marayaa saaxiibayaal daawadayaal gool iyo eber ay ku hogaaminayaan ciyaartooda hirshabeelle soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaan baqaadeenaa qaybta labaad ee ciyaarta kulanka weyn ee u dhaxeeya maamul goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale wiilasha galmudug qaybtii koowaad ee ciyaartan waxaa lagu kala maray daawadayaal saaxiibayaal gool iyo eber ay ku hogaaminayaan ciyaartooda hirshabeelle waxaana goolkaasi qaybta koowaad daqiiqadii 37 u dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo cumar bashiir cusmaan kaasoo ka ciyaaraya difaaca bidix qaybtan labaad ciyaartooda galmudug ayaa sameynaya baaska qaybta labaad garsoorku seeriga ayuu ka dhawaajiyey waxaana la ambaqaadayaa qaybta labaad ee ciyaarta wiilasha galmudug ayaana sameeyeen baaska qaybta labaad ee kulankan kubaddii ka timid bashiir
ولا قصوا هذا اللاعب كلو مجا بيتاح لمبر كل حاد هيرشبيل ayaa kubadaasi soo maamusay عاد بيتاح إبراهيم دغو وحول عيار صاحب كيسا مركلان waxay soo gaartay لاعب كلو مجا بلوان أحمد حسين حسن أحمد وصدر فيه حسن كافي وحكمه حسن كافي با حسن عبد حسن ووساك راسك وبدا جيس كلاتكا قلمدق واي مدحيين مركله قلمدق يا سلام سبر اسكو داي دور عيارنا يا كبدنا وتاغن waxaana hogaaminaya laacib kale uu magacaabo Cabdi Fataah Maxamed Xuseen Xasan Cabdi Xasaan iyo soo kale Bilaal Xasan Cabdi Xasaan ayaa u taagay hasaatee madaxaya ku soo saareen Hirshabeelle xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle waxay sameeyeen isbedeladii ugu horeeyay ciyaarta si wax badan ciyaarta ugu sameeyaan markan Hirshabeelle boos fiican ayaa la soo dhigay goolaha Zakariya Laale kubaddaas way ka baxsatay si kasta waa foul Fataah kubadda uu soo ciyaaray waxa la wareegay Cabdirashiid Dable wala yaqaado kubaddaasi waa weerar ciyaartooyda Hirshabeelle boos fiican ayaa la keenay Xasan Kaafi waa u taagay waa kubadda alisa Axmed Xuseen Xasan banaanka meel kasta dunida ku joogta waan kaga mahadcelinaa fikirkiina qaaliga waqtigiina qaaliga iyo sidoo kale commentigiina quruxda badan ayaad nala soo wadaagaysaan ciyaarta u dhaxaysa galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle haddii aan ku soo laabano waxay maraysaa gool eber daqiiqadii 7aad oo isii raacday 25 sakin Umar Bashiir oo dhaliyay goolkii daqiiqadii 37 garabka ay taala markan ciyaartooyda galmudug naanka ay keenan kubadaasi markan ya salaam ugu dambeeyna kubadaasi labadiisa gacmood ayuu isaga soo saaray gool ayaa lagu magacaabay Jeelaani Ali Macow garabka ay taala markan ciyaartooyda galmudug waa weerar Bashiir banaanku keenay ya salaam قلصو قلمدوك قلبتوا كوحد أحمد تاليل قلبتوا عيريان كلمبرك السقالي توبناد امام القبلات كقلمدوك المهندس محمد محمود احمد كاسو عيارتك ريقا جول سواحن بدن يا جرونك اسقبسداي صعب بدن oo taageerayaasha galmudug ayaa garoonka isqabsaday way soo laabteen galmudug way soo laabteen geesiyaashu waasay soo noolaadeen ciyaartooyda galmudug waxay kubad Bashiir Tooyo u dhisay waxa kubad ugu dambeyn shabaq uu ku ubsaday ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Axmed lambarka 19aad ee galmudug gool waxay kubad dhinac kasta marka laga eego dhinac kasta ka qurux badan taabasho kasta oo la sameeyay waxay kubad tiigso ku dhisan kubad kasta oo talantaali oo galmudug ay ciyaartay ugu dambeyn way taabtay shabaqo Bashiir Tooyo ayaa soo dhisay ka soo ka caawiyay shabaqa inuu gaaro ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Axmed kaas oo shumac kaloo gaar ah u noqday barbaarta galmudug way faraxsan yihiin waasay ku qanacsan yihiin goolku dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Axmed kubad kaloo alisa Xasan Kaafi si qurux badan wali Xasan Kaafi isaga ayaa haysta Xasan Kaafi xarada ayuu ku dhacay wali kubadda way socotaa markan Axmed ya salaam الله محي خساريان فرصدان لا من كرين الله محي لوميان فرصدان لا قياس كرين صاري لمبر كل حي تمناد كلمدك لاعب كلو مغاب احمد سليمان فرصه كلا عليسا يا سلام سالس waxay muuqanaya gabdho badan oo taageeray Hirshabeelle iyo wiilal badan oo taageeray Hirshabeelle kuwaas oo wali ka quusan rajada ciyaarta ay kala hayeen ولا صوباس مركان ولي قلمدوق يا ولا عياريسا حسن عبد حسان قطر قلاتسو قلمدوق يا دلسي قلمدوق يا جول كل بعد شيء حسن عبد حسان يا قامي نتيجه وجود عيارته الله ما هو جول لافي الله ما هو جول يمد وقتي لو بانا عيارته الله ما هو جول سركيو صار قادي ضمان تاجر يا قلمدوق waxay kubad dhinac kasta ka qurux badan dabcan waa 4 daqiiqo dheeriya Fuad Cabdirashiid Dable taxanii baasaska iyo ciyaartoydiisa ay gaarsiiyeen Xasan Cabdi Xasaan iyo kubaddii dulcooda ku dhisneeday Xasan taasoo taabsiyay shabaqa Hirshabeelle si kastaba garsoorku seeriga ayuu ka dhawaajiyay wax kasta oo la wada ciyaaro wax kasta oo ciyaarto ay socoto wax kasta oo weerar ay sameeyaan ciyaartooyda labada dhinac ugu dambeyn garsoore Maxamed Soomaali seeriga ayuu ka dhawaajiyay waxaana natiijadu guud ee ciyaartu saaxiibayaal daawadayaal ay ku soo idlaatay galmudug 2 gool
hirshabeelle gool hambalyo galmudug sidoo kale waxaa sidaasi lagu macsalaameeyey ciyaartooyda xulka kubadda cagta hirshabeelle kuwaas soo gebi ahaanba isaga haray tartanka maamul goboleedyadii gobolka banaadir